يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كوبي آمنوا رميجوا إذا نودي هدي الله رواقه للصلاة صلاة الله إيدامه من يوم الجمعة في يوم الجمعة جمعة مالنتي هدي صلاة الله إيدامه فاسعوا صعدا إلى ذكر الله إله حسكي سأصعدا وذروا كتغا البيع بيع كتغا ذلكم كيناس من السعي إلى ذكر الله وترك البيع حسك إلهي إن لا آدو أو بيعي يولغتغو أيا خير لكم إذن خير بدن إن كنتم هدياتهم تعلمون كبي وحك إلهي تبارك وتعالى وحوليه يا أيها الذين كبي آمنوا رمي إذا نودي هدي لو إيدامه للصلاة صلاة هدي لو إيدامه من يوم الجمعة في يوم الجمعة جمعة مالنتي هدي صلاة لو إيدامه فاسعوا صعدا إلى ذكر الله إلهي حسكي سعادة حسكي إلهي وامحي وخطبتي جمعه خطبة آدو ويجان خطبة دقيستا وصلاة دكذا حلقاس خطبة سعوته شقوى حرام dadka xilligaas dukaamada u furan ama bakhaarada u furan ama wax gadgadayo beecaas waa xaraam bay kasbanooyin kolka wax xaraam bay kasbanooyin marka beecaas waa xaraam inkastoo beeca uu iska ansaxayo laakiin waa xaraam kolka wax xaraam ma ku dhaxgelinayo beeca uu iska ansaxaya laakiin waa xaraam shay xaraam xoolahaaga ha ku dhaxdarin wax xaraam xoolahaaga ha ku dhaxdarin قلت إلهي وحكوليه حلقاس باع جوجية حسك إلهي كقيب قلا خطبة داس خطيب كجيرينا يديغيستا لأن خطبة دا أديغا لغوغو تلقلي أديغنا هدي الدكان كاجة بخار كاجة اسكفة ديسي مشكلة دي ليدهي فاسعوا صعدا إلى ذكر الله إلهي حسكي سعادة تبارك وتعالى وذروا كتغ البيع بيع كتغ ذلكم كيناس ومن السعي إلى ذكر الله وترك البيع أيا خير لكم بدين خير بدن إن كنتم هدياتهن تعلمون كوي وحك هداتهن ولا بجمعها خطبة ما لنت جمعها اليوم لسكا آدايا في عن حفكي هل سعي ماذا سعد أقوها رئيسي ماذا النبي وحوري صلى الله عليه وسلم وحولمتي يسبع نيف جيل صدق يستي أو كلام نيف جيل هذا وأنت $100 أما كوني واحد جرى حوجة $1 أديك وحول دونا بها هذا إنتاس أديك نيف جيل وين صاغري جورعيو هيل كيس قيوية وصدقية آيات لم تهي قفكي سعد كل حكتي مادنه نيف لا إسقو صدقية أو كلام سعد كل حكتي صدحات قفكي مادنه إسقو ون جورعيو أو كلا قيوية سعد كل حكتي أفراد قفكي ماده إسقو دورة gowracay oo kala qiibiyay saacad shanaad haduu yimaadana qofka isagoo ukun baxsaday amal ay la mid tahay marka wixii markaas ka dambeeyay bas waa iska iimaanaysa laakiin waxba ma helaysi kolka waxa fiican maalinta jimcaha fadaaisha qofka inuu is hordhigo yaani saacada hore inuu yimaado ayaa aad u fiican ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون annagoo jaraa waxaan arki jirnay duqooshin odayaal ah waayeela ah oo saacada hore bisayd ay ku kala haayaan qaarkoodii 12 saac qaarkoodii 1 saac ilaa wax bay dareensanayeen allahna dareensiiyo ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت هدي لغوتو الصلاة صلاة هدي لغوتو أو صلاة لغبحو فانتشروا في الأرض دولك كفر دولك كفر أو كفافة وابتغوا راضية من فضل الله إله فضله سرادية مركز قناصي وحسمين إسان سمايا واذكروا الله إلهي نحسى كثيرا ذكرا حسد إلهي حسى ذكره كثيرا فربدا وعربك إلهي كحسى قلبك إلهي كحسى جوارح دين إلهي كحسى مركيسة حس فربدا إلهي حسى تبارك وتعالى ولي بمعلنتها آت اللوب بديو صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبيك جمعها هي معلنة جمعها إن صلى آت لوب بديو أجاب في عنه حتى معلنتها
maadaama mawsimkii salliga la joogo xataa quraan akhriska qaar waxay leeyihiin salligaaba ka fadli badan maalintaas xataa quraan akhriska maalintaas salligaa ka fiican salliga badi marka intaad akhrin kartid 5,000 10,000 maalintaa ha ka cajisin lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuun inaad aflaxdaan ood liiwaantaan arrintaasaa ku aflaxaysaan adduunyo iyo aakhiro liiwaanna maxaa la yidhaahdaa falaaxu waxaa weeyaan qofka wixii uu rawaynay inuu helo wuxuu ka cabsanayeen inuu ka badbaado taasaa liiwaan la yidhaahdaa waidaa ra'aw hadday arkeen asxaabta tijaaratan ganacsi hadday arkeen ow amase lahwaa wax muhimka lagaga mashquulo markay arkeen infaduu way kala tageen ilayhaa tijaarada xaggeeday u kala yaaceen watarakuuka adigana way kaa tageen nabi muxamedow calayka asalaatu wassalaam qaa'iman xaal aa tahay ku taagan adigoo khudbaynaya mimbarka saaran bay kaa kala tageen qul waxaad ku tiraahdaa nabi muxamedow calayka asalaatu wassalaam maa wixii cinda allah ilaahay agtiisa ahaaday oo hawaab iyo janno iyo nicmo ah ayaa khayrun khayr badan min allahwi waxa muhimka lagaga mashquulo ka khayr badan wa min atijaara tijaaradii beec mushtarkana ka khayr badan wallaahu ilaahay khayru raasiqiina inta wax arsaaqda allah ugu khayrka badan waaye ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waidaa ra'aw hadday arkeen asxaabta tijaaratan ganacsi beec mushtar markay arkeen ow amase lahwan waxa muhimka lagaga mashquulo markay arkeen infaduu way kala tageen ilayhaa tijaaradaas xaggeedii u kala yaaceen watarakuuka adigana way kaa tageen nabi muxamedow calayka asalaatu wassalaam qaa'iman xaal adigoo taagan oo khudbaynayo ayay kaa tageen macnaha waxaa weeyaan nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo taagan oo mimbarka ku taagan oo khudbaynayo maalin jimca ay tahay xilligaasaa waxaa soo gashay magaalada awr shaam bay ka timid oo badeeco badan wado raashin fara badanna way wadaan waxaa keenay dixyatulkalbi ayaa keenay reer madiina markaasne gaajo iyo awaar iyo sicir barar ay ku jireen wax walba waa qaali looma dhowaan kara ashyaada caadadoodii waxay ahayd qofka haddii badeeco uu keeno magaalada durbaan baa la garaacayaa waa la qaylinayaa si dadkoo dhan ay u dareemaan ay isugu soo baxaan oo badeecadaasayta la gato hadda xilli wuxuu ku soo aaday nabigoo khudbaynaya calayhi salaatu wassalaam oo jumcana ay tahay markaasay durbaankii ay garaaceen dadkan badeecada keenay wixii masaajidka ku jiray dhan way kala soo yaaceen nabigana wuu khudbaynayaa calayhi salaatu wassalaam bay ka soo tageen waxaa ku soo hartay baa la yidhaahdaa 12 nin unbaa ku soo hartay jaabir ibni cabdillaahi wuxuu leeyahay anigana 12kaas nin ayaan ka mid ahaa ma arkaysa dad yar 12 nin unbaa soo hartay dadkii kale aabi kulli way baxeen ayadaana marka ilaahay soo dejiyey tabaaraka wa tacaala marka maxay dadku u yaaceen salaadii khudbada jaaway dugteen ilaan jumcada waxay ahaan jirtay sida ciidahoo kale marka hore salaadaa la dukanaya khudbada way dambeynaysa markii asxaabtu sidaan ay sameeyeen ilaa hadda salaad loo xayirnaanayo salaad loo fadhinaanayo ma jiro salaadii way dugteen khudbadii ayaa la akrinaya khudbada markaa way dambeyn jirtay markii sidaa ay sameeyeen waxaa la amray khudbada in la hormariyo salaadana dib loo dhigo ilan si khudbada loo dhageysto khudbada in laga tago ma aha khudbada in la dhageysto weeyaan laakiin ciideedka waa sidoodii labada ciidood waa sidoodii salaadaha horeyso khudbooyinkana gadaalay jirtaa amaa jimcada miya khudbadaa horeyso salaadana way dambaysaa qul waxaad ku tiraahdaa nabi muxamedow calayka asalaatu wassalaam maa wixii cinda allah ilaahay agtiisa ahaaday oo hawaab iyo nicmi iyo janno ah ayaa khayrun khayr badan min allahwi lahwigii waxaa muhimka lagaga daaho ka khayr badan wa min atijaara tijaaradii ganacsiga beec mushtarkan ka khayr badan war waxaad aad u cararaysaan tijaarada aad u bixaysaan waxaa ka fiican waxa ilaa agtiisa yaalo
khayrka aad dhagaysanaysaan ayaa ka fiican khayrka ma iska dhagaysataan wallahu ilaahay khayrur raasiqiin inta wax arsaaqda allah ugu khayrka badan weeye nin la yiraahdo Ciraaq ibn Malik markuu salaada jimcaha dukado ayuu bixi jiray albaabka masaajidka ayuu istaagayay markaasuu dhihi jiray allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaytu fariidataka wa intashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khayrur raziqin ilaahu da'wadaadi waan ajiibay waad ii yeertay waan imid fariidadaadi waan dukaday waan faafaya haddana saatii amartay ayaan u baxayaa ilaahu fadligaadi igu arzaaq allah khayrur raziqin ayaa tahay سورة المنافقون مدنية والله سبحانه وتعالى